وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. أيضا waxay si cad u qeexaysaa maadaama oo ay buruhu ka mid yihiin dhulka waxa la eegaa toddobada hawo ee kala duwan iyo toddobada layriska ee kala duwan ee ka sarreeya iyaga laftoodu in ay ka mid yihiin dhulka waxa kaloo ka mid ah gaaskii iyo daruurtii oo sida ayadu qeexayso oo kale sida daruuraha oo kale ayay u socotaa buurtu marka uu Ilaahay leeyahay subxaanahu wa ta'aala macnaheedu wax weeyaan wajacalna al-layla والنهار آيتين فما حول آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة كلام والليل إذا أغشاها والنهار إذا جلاها habeenkii maalintu ma dhalan karayo hadii aanu wareegkaasi dhulku isagu iskiisku sameeyo wajina uu jeesanayo xaq cadeeda wajina uu ka soo jeesanayo yahay oo xaq wajiga u jeeda uu macnaheedu yahay maalinimada wajiga ka sii jeedana uu noqonayo markaasi habeenkii sida xadiiskii shariifkuna uu sheegayay waxa iyaduna halkaasi qeexid mudan in nabiga la weydiyo lagu yiri cadeedana markay naga dhacdo xagay tagtaa dabeedna wuxuu ugu jawaabay markay naga tagtay ay dhacdo qolo kale u soo baxda qoladaasi ay soo baxday waxay yiraahdaan way soo baxday oo shuruuq kuwa ay ka dhacdayna waxay yiraahdaan way ka dhacday ilaa meel Ilaahay ugu talagalay ay tagto xadiis kale shariif inuu leeyahay waxay tagtaa arshur rahmaan oo ay ku sujuudaa ilaa imaka ujaas kuma gaarin laakiin aayadan imaka aynu soo qaadanay waxay si cadaan u qeexaysaa dhalashada habeenka iyo maalinta in uu ku xidhan yahay wareegga dhulku uu ku sameeyo cadeeda isagu iskugu wareego wajina uu ku jeesto cadeeda wajina uu ka soo jeesto aysigelinta kale ee aynu ka fahmi karno aayadani waxa weeyaan waxa aynu nahno plate tectonics ee aqoonta geology ay tiraahdo plate tectonics kaasi marka aynu qeexno waxa weeyaan layerka labaad ee dhulka ayaa waxa uu leeyahay dareere wareegaya oo aan marnaba isagu istaagin oo markaasi waa halka asal ahaan buurtu ay marka dambe ay ka soo baxday ay vulkaniga ay noqoto plate tectonicaasi oo wareegaasi layerka labaad ee dhulka uu yahay ee wareegayo buurtan imika dusha aynu ku aragnaa waxay u muuqataa inay taagan tahay haddana ma taagno ee waxa u socotaa sida daruurtu ay u socoto oo kale ayuu wareegaya oo plate tectonics qaybtii hoose weeyaan marka wax asalkeedu waa wetted oo wax weeyaan masaabiir ay dhulka ku tahay maadaama ay masaabiir tahay inta dusha ka soo muuqata earth crust markaynu raahno dusha sare laga arko tobankeed ayaa dhulka ku aasan waa sidii birtaandho oo kale ayaa lagu qeexaa aynu u isticmaalno oo kale inay taandhada hayso qaybta soo taagan ee dusha laga arkayo birtaandhadu waxa weeyaan qayb yar inta toban laabkeedna waxa weeyaan inta dee dhulka la gelinaya haysan buurtuna sida wadadka aayada quraanku ay u sheegayso ayay u sheegan tahay dhulku uu ku sameeyo cadeeda reego wajina uu ku jeesto cadeeda wajina uu ka soo jeesto waxay yiraahdaan 30 kilomitir ayaa ilbiriqsigiiba xawaare inta leeg ayuu jiraa haddana ma dareeno qiyaasto intaynu ka nahay dhulka marka la eego xajmigiisa intaynu ka nahay markaad tiraahdo waxaad fahmi karaysaa macnaheedu quraanjo wax 10 jeer ka yar quraanjada yar yar wax 10 jeer ka yar oo kale ayaynu uga dhiganahay marka aynu dhulka dushiisa taaganahay dhulku iyo buuruhu wadadka waxay u wareegaan sida ay u wareegayaan daruurta oo kale inaga laakiin xigmad ahaan Ilaahay wuxuu noogu talagalay inay inoogu muuqato jaamid wax taagan oo kale ay noogu muuqato oo ma dareemi karno waxaan markaa soo gabagabeynaya wa innahu ladhikrun laka wa liqawmika Allahu al-azim waxaa turjumay xarunta cilmi baarista aqoonta dhaqanka ee Cari Ideg fadlan si qaybi